taliska booliiska gobolka Baay ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgal ciidanka booliiska ay ku soo qabteen bambaanooyin lagu soo qariyay gaari rakaab siday oo ka yimid tuulooyinka hoos yimaada magaalada Baydhabo. gaarigan oo shalay gelinkii dambe ciidanku gacanta ku soo dhigeen ayaa wadihii gaariga waxa uu iska fogeeyay inuusan waxba ka ogeyn cidda soo saartay qaraxyadan gaariga. maylaha oo saaray raamaday umur madaylan la raaw yahay isaari anoon roognay qurac jaro hataa la isaari karshboy yalin dhiibi lambara la ka qori beesadan ku qaadooy qonton ku beesan ku qaadooy lankana barkan laakiin kooye ku dijiba li ari marka ilaahay amarshaysa salaha isaari baaburkan ani mas'uul ku haay marka aneen halkii la saarayna ma roogno loorkan ay leewaari ana beesraadisa haay marka an hoob la saarin ilaahay ku tiridiis anta la kooyina walbaari bamamki yalla ka aragi marka si wal injiraan asaasi. wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay howlgalkan waxa uu cadeeyay in cidna aysan ka yeelayn waxyeeleynta shacabka koonfur galbeed. bambiyaalkun wali leenka talagalay in la ka dhibaatay umadoon deegaanadan waxa ku jeed gaar ahaan oo reer koonfur galbeed gaar ahaan reer Baydhabo oo waliyo halaayaan in lahayd nimanka cadowga araga haytan umadoon wali usala damacsiye wali lana insha Allah taala dhamaan ciidamada booliiska iyo ciidamada laamasho kala duwan ka baaqane inayo si lama laaban hooloyo wadaan eediyeen wala in ka mahadnagay sarkaalkun hoolun hiraabta ka guuleysay inuu saaqoobado ka badbaadiye umadoon in la ka dhibaatay ka badbaadiya insha Allah taala mahadnagay ilaahay idin shay walin rajeene dhamaan saraakiil howlgalada leh oo ama control rug ama meelo kala rugan inayo ka shaqeeyaan sida lankun shaqeeyo isku badan inayo shaqeeyaan ku rajeen tan kala may baaqan diray dhamaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Baydhabo ay baaqan diraan walilana muqaddas way nabadda in la ku shaqeeyo way lan la ku ogolaado ma jar beledku in nabadgeliyo doro ka abuur hal qof uu ku ogolaadana ma jar wali fadaw haadoy qaabki fadaw haadoy nooci fadaw u yaaloy mal ogolaado doon maan ogolaadano in nabadgeliyo doro beledku ku shaqeeyo gabi ahaan cid alla iska deeyta in nabadgeliyo doro beledku ku shaqeeyton bidinilaahi alkariim talaabaya ka faraxdo lagu qaada ilaahay idin shay. howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Baydhabo dhawaan ay ka dhici doonto doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaana toddobaadyadii la soo dhaafay habeeno isxigay magaalada Baydhabo ka dhacay weeraro loo adeegsaday bambaanooyinka nooca gacanta laga tuuro kuwaasoo waxyeelo ka soo gaartay shacab. Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga caalamiga ee SABC TV Baydhabo.